kuwan waxay ka mid yihiin kumanaan qoys oo ka soo qaxay Cameroon. Reena waxay kala lumeen xaaskiisa iyo ilmihiisa kadib howlgalkii military kaas oo lagu baabi'iyey tuulada dhowr qofna lagu dilay. xaaskiisa iyo carruurtiisa waxaa caawiyey gawaari si Nigeria ay u soo galaan, laakiin in ka badan isbuuc ayay ku jireen duurka si rabshadaha ay uga badbaadaan, waxayna cunayeen caleenta geedaha. waxaan maqalnay rasaas midig iyo bidix ayaan u cararnay. qaarkeen 8 maalmood ay kaynta ku jireen, aniga keligay 8 maalmood ayaan kaynta ku dhex cararayay. weli qaar ka mid ah qoyskayga ma helin. qaxooti badan ayaa dhibaato noocan ah la kulmay. dumarka qaarna waxa ay sheegayaan in la kufsaday. dowladda Cameroon waxaa ku xoog badan bulshooyinka luqadda Faransiiska ku hadla, waxayna beenisay inay xadgudub geysatay. waxay dowladda sheegaysaa in militariga ay difaacayaan dhulka qaran ee gobolka Ingiliishka looga hadlo. laakiin qaxooti badan sida kuwan ku nool tuulada Abokim weli waxa ay ka argagaxsan yihiin colaaddii ay la kulmeen. haddii aan xorowno waa noqonaynaa, laakiin haddii dagaalka uusan dhammaan dib uma noqon doono, sababta oo ah ciidamada ayaan ka baqaynaa. hubka culus wuxuu xanuun ku reebay qalbigayga. haddii aan maqlo rasaas dhacaysa, qalbiga ayaa i xanuunayo sida in aan dhiman rabo. waxaa soo dhoweeyey dadka deegaanka maadaama aysan jirin xeryo rasmi ah. kuwa badan oo aan la wehelina dhibka ayay u nugul yihiin, sida uu sheegay madaxa hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay. ilaa iyo hadda waa dhibaato adag. waa murugo in xaqiiqdii aad aragto qulqulka dad, gaar ahaan markaadan dhaqaalo u diyaarsan. way dhib badan tahay in la isku keeno oo aan ahayn baqoodintooda. marka waxaannu samaynaynay ilaa 1 Oktoobar markii aannu bilownay ficil aannu ku eegayno sidii aannu ku caawin lahayn si aannu u aadno tuulooyinka iyo meelaha yaryar ee dhammaan magaalooyinka xuduudda iyo tuulooyinka xadka Cameroon. hay-adaha gargaarka degdega ah waxa ay sheegayaan inay ka fikirayaan samaynta xeryo ay hoy ka dhigtaan dadka qaxootiga ah, oo ay tilmaameen in 1 malyan ay tiradooda gaari karto bilaha soo socda haddii nabadda koonfurta Cameroon aysan soo noqonin.